عليكم إن nolosha laga yeesho hadaf loo noolaado isaga aawadii waxa uu ka mid yahay weydiimaha ugu adag ee aadka ugu adag tahay in uu ka warceliyo qof alle aaminsan mooyaane qof kale adduunka waxa shaki la'aan ah in aynu maalin nimi oo aynaan weligan joogaynin maalinna aynu ka tagi doono oo aynaan jiri doonin weligan wadeed waxa muhiim ah in uu jiro yool iyo han aad ka leedahay nolosha oo aad u socoto habeen iyo maalin in aad gaadho haddii aad hesho fursad mudan in aad wax kaga faa'iideysato waa in aad kaga faa'iideysataa u dhawaanshaha hadafkii aad dejisatay tusaale hadafka uu leeyahay qof kasta oo muslim ahi waa in uu raali geliyo rabbigii abuuray ee ahaysiiyey sidoo kale waa in uu aadamaha la nool ku caawiyo sidii ay iyaguna alle u raali gelin lahaayeen waxa jira dadyow fara badan oo adduunka jooga oo leh hadafyo badan oo kala gedisan mid ayaa hadafka uu u nool yahay uu yahay in uu noqdo qof caan ah oo adduunka oo dhami uu yaqaano oo kaliya mid ayaa hadafkiisu uu yahay in uu noqdo ganacsade lacag badani u socoto una soo xarooto bishii kasta iyo sanadkii marka uu xisaab xidhka samaynayo qof kale ayaa waxa uu yool ka dhigtay in bulshada uu la nool yahay u shaqeeyo oo aragtidooda iyo aqoontoodaba uu saxo qofka muslimka ahi ma aha mid ay lama agmaraan ka tahay in uu noqdo mid ganacsade oo shaqaysta ah in uu noqdo mid caan ah waxaase jira ujeeddo iyo hadaf ka weyn in uu noqdo ganacsade oo ah in uu u socdo sidii uu uga badbaadi lahaa naar dadkana hadafka ugu caawin lahaa inta aynu ku kulmano muuqaal kale waa aniga oo ah Sakariya Haaruni oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh